magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxa si rasmi ah uga furmay dib u diiwaangelinta codbixiyaha cidii aan hore nasiibka u yeelan inay isu diiwaangeliyaan saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland cud wadani iyo kulmiye iyo xubno kamida guddiga komishanka doorashooyinka qaranka ayaa sameeyay kormeer ay u hurgalayeen xaaladda dib u diiwaangelinta codbixiyaha dadkii aan nasiibka u yeelan inay hore isu diiwaangeliyaan kormeerkaasi kadib waxa si wada jira warbaahinta uu la hadlay gudoomiyaasha xisbiyada ucid injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro gudoomiyaha ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdi Dheere iyo komishaneer Kaltuun Sheekh Xasan waxayna dhamaantood bulshada ku dhaqan gobolkan Togdheer iyo guud ahaanba Soomaaliland ay fareen inay ka faa'iideystaan fursadan oo ay isdiiwaangeliyaan cidii aan hore isu diiwaangelin kaarka codbixiyuhu ku celceliye kaarkiisa hore ka gubtay iyo qof haba ahaada qaangaari laakiin aanay u suura gelin markii hore inuu isdiiwaangeliyo ama dalka ka maqnaada ama ha joogay saddexda qof baa loogu talagalay inay 4 maalmood isdiiwaangeliyaan marka waa muhiim dadku inay ogaadaan yaanu ku noqon qofkii markii hore isdiiwaangeliyay ee kaarkiisa uu sax yahay oo aan duplicate ahayn haddii 4 maalmood uu ka qayb qaatay kaarkiisa hore uu ka gubanaya marka qof kasta oo hore isu diiwaangeliyay kaarkiisuna sax yahay yaanu isdiiwaangelinin 4 maalmood aynu ku jirno iyo inta ka dambeysaba waxa kale oo jira dad iyaguna muhiim ah oo loo tixgelin doono oo ah qofka kaarka uu ka lumay qofka kaarka uu ka lumay iyo degmooyinka qofka doonaya inuu iska bedelo degmooyinka horena waa nagu celcelinay waxa weeyaan 23 degmo doorasho ayuunbuu qofku ka dooran doonaa ka uu doonayo hadhow inuu isu bedelo laakiin caasimadda gudaheeda oo kale looma ogolaanay waa degmo ilaa degmo marka taan bulshada in la gaarsiiyo oo qofkii doonaya markii hore tusaale ahaan ama oodweyne ha ahaado ama hargeysaba ha ahaado inuu iska bedelo Burco hargeysa taga ama iska bedelo oodweyne tago 14 maalmood oo dambe oo la siin doona ayaa jira 14 kaas qofkaas ka faa'iideysanaya qofka kaarku ka lamina wuxuu ka faa'iideysanayaa muddada marka dhammaan waxaan ku faraxsanahay maanta gobolka Togdheer dhammaan caynaba gar adag ceelfweyn inay ka bilaabmeen goobaha doorashooyinka goobaha codbixinta inay si fiican uga furantay una shaqeynayaan waxay idinku kaga wanaagsan tihiin goboladii hore dad soo shaqeeyo oo khibrad la maanta fadhiyo goobaha way ka gacan fudud yihiin intii hore way qofku marka ugu horeeyo wax bilaabo iyo markuu sii barto waxa ka sii wanaagsan marka dambe marka idinku waxaad u heshay nasiib xubno fiican oo soo shaqeeyay oo khibrad u leh oo speedkooda maanta fiican yahay goobo badan baan soo maray si fiican bay u shaqeynayaan waxay ilaahay ka rajaynaa sida ay noogu dhamaato aragtaano saddex xusbe wada socdaan waa doorashadii u horeysay diiwaangelintii horeysay ee saddex xusbe ay si wada jira wada shaqeynayaan waxaana wax lagu noqon karo waxa weeye waa midnimadaas iyo wada shaqeyntaas wax lagu noqon waxaan doonaynaa inaynu insha Allah taala diiwaangelintana Burco deewaa bari horena 40 kubaaleed qaadan oo kaarbeedii yaalay 40 kuna waxaan dadkeeda barigii aan qaadan ha soo qaateen ismuujiya waxaana inoo ah balan doorashada gelinaa insha Allah taala doorashadaasi khayr bay nagu dhamaanaysaa madaxweynuhu way ka go'an tahay ehrana way ka go'an tahay ana hore iga go'oneen fiican bay u bilaabantay intii aan soo marray ilaa 7 goobood baa saaka soo marray si fiican bay dadku hawsha u wadeen goobaha soo marnayna way wada fiicnaayeen oo markaan weydiinay howlwadeenadii waa ciladii jirin waxaan ku guubaabinaynaa uun 6 degmo doorashada in dadku kaararka qaataan isdiiwaangeliyaan oo qofkii markii hore isdiiwaangeliyay waana mar labaad isdiiwaangelin ama kaarkii haysto ama ha ka lumo laba baahan in isdiiwaangeliyo hadduu ka lumayna waa loo bedeli doonaa fariin isku mid aanu diraynaa annagoo isku duuban saddexdii xusbiba waa aragtaan iyo xukuumaddiiba waanu ka simannahay waanu gacmahaanu isku haysanaa idinka gobol ahaan gobolka Togdheer hore diiwaangelintii waa la wada galay qaaran kaarka qaadanna way jireen intii qaan gaadhay iyo intii bariga hore aan qaadan baa maanta la leeyahay kaarka qaata oo isdiiwaangeliya ayaa Cabdullaahi Jaamac warbaahinta caalamiga SBC magaalada Burco.